kaamirmaankani oo lagu magacaabi jiray Kevin Carter kuna magac dheer David waxa uu ahaa kaamirmaan markaasi ama sawir qaado caan ah oo laga yaqaan dunida isagoona ku guuleystay amaan marin caan ah magaciisu waxa uu ahaa Kevin Carter waxa uu ku magac dheer David waxa uu sanadkii 1960 bishii September ku dhashay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa ama markaasi Koonfur Afrika isagoona halkaasi ku soo barbaaray hadaba Kevin Carter ayaa sanadkii 1980 waxa uu ka mid noqday ciidamada militariga ee dalkaasi isagoona ciidamadii isaga baxay sanadkii 1984 Kevin Carter ayaa markaasi waxa uu bilaabay inuu barto sawir qaadista isagoona shaqadaasi bilaabay isagoona caan ka noqday wadankaasi noqdayna kaamirmaan caan ah Kevin Carter ayaa ka soo shaqeeyay markaasi majalada caan ah oo la oran jiray Johannesburg Star isagoona markaasi ka mid noqday urur saxafiyiin caan ah oo la oran jiray markaasi Benberg Kevin Carter ayaa ururkaasi ka tirsanaa muddo badan hadaba dalka Suudaan sanadkii 1991 iyo 92 waxa ka dilaacay mid kamid ah abaare ugu xumaa taariikhda aadanaha waana meesha dulucda u ah sheekada Kevin Carter iyadoona intaasi u sii dheereeda jamhada markaasi xornimadoona oo ka soo horjeeday dawladda Suudaan oo una dagaalamayay wadanka South Sudan sanadkii 1992 waxa dalkaasi gaaray madaxa UN-ka ee dalkaasi u qaabilsanaa Suudaan isagoona markaasi halkaasi ku arkay abaare baasan duniduna waxay ahayd mid ka sii jeeday dhibaatooyinkii ka taagnaa dalka Suudaan adoo madaxii arrimaha gargaarka u qaabilsanaa dalka Suudaan ee qaramada midoobay ayaa markaasi u baahday fotografiga oo markaasi sawir qaada sawirro si dunida loo tuso dhibaatada ka taagan halkani oo gurmud loogu sameeyo madaxii qaramada midoobay u qaabilsanaa dalka Suudaan ayaa markaasi la xiriiray urur caan oo la oran jiray Benberg oo ka tirsanaa markaasi Kevin Carter oo xaruntiisu ahayd magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika isagoona markaasi ka codsaday in loo soo diro sawir qaade meeshani ka shaqadani ka soo bixi kara uu asaguna amnigiisa damaanad qaadayo hadaba ururkaasi ayaa soo xulay kaamirmaankani oo lagu magacaabi jiray Kevin Carter isagoona sanadkii 1992 gaaray wadanka Suudaan oo xilligaasi South Sudan iyo Suudaan la isku jiray Suudaan hadaba Kevin Carter ayaa markaasi waxa uu sawir ka qaaday dadkii abaaru sameeyeen cuntada markaasi loo qaybinayay maalmaha kamid ah Kevin Carter oo wata gaarigiisa una socda meel badar laga qaybinayo si uu sawir aga qaado ayaa waxa uu la kulmay ilmo yar oo markaasi uu bahalka ag taagan yahay isagoona markaasi inta sawir ka qaaday ka tagay hadaba sawirkaasi ayaa si weyn dunida ugu faafay waxa uu noqday mid caan ah waxaana markaasi lagu daabacay sawirkaasi majalada caanka ah ee lagu magacaabo New York Times ee ka soo baxda dalka Mareykanka isagoona sawirkaasi dunida qabsaday dadweynihii arkay sawirkaasi ayaa siyaabo kala duwan faalla uga dhiibtay iyagoona markaasi sheegayay inuu Kevin Carter ku khaldana inuu sawir ka qaado in ma baahan iyadoo la rabay inuu gaarigiisa ku qaado halka dadka qaarna ay dhahayeen waxa uu dhibaatadii ka saaray dalka Suudaan oo markaasi dunidii ayaa indhaha ku qabatay Kevin Carter asaga mar waxa laga weydiiyay sawirkaasi waxa uu sheegay inuu san ilmihii qaadin waxa uu ku andacooday sababta uu qaadi waayay ilmahaasi in ay tahay in hay'adaha qaramada midoobay oo u shaqeynay xilligaasi ay diideen in markaasi hal qof gaariga lagu soo qaaday iyagoona sheegay in ay shaqaalaha qaramada midoobay cudurro ka qaadi karaan hadaba sanadkii 1994 Kevin Carter ayaa isaga laabtay dalkiisa isagoona markaasi sawirkaasi kula guuleystay kaamirmaanka ugu fiicnaa waxa uu ku laabtay dalkiisii gaar ahaan magaalada Johannesburg ee uu ku dhashay Kevin Carter ayaa waxa xilligaasi ku dhacay isbedel xoogan isagoona sheegay inuu markaasi ay cadaadiska dadku saareen uu dhibaato weyn ka soo wajahay hadaba Kevin Carter ayaa bishii Abriil ee uu ku guuleystay 2 bil ka bacdi waxa uu markaasi bishii July 27 sanadkii 1994 maalmaha kamid ah waxa uu yimid gaarigiisa oo meel cidla taagan waxa uuna tuba ka geeyay meesha matoorka ah isagoona tubada inta afka gashaday gaarigiisa ku sheelareeyay intaasi kadib Kevin Carter qiici ayaa hawada ka ayaa markaasi wadnaha ka galay isagoona ugu dambeyn u geeriyooday halkaasina isku dilay hadaba buug xasuus qor oo Kevin Carter halkaasi uga tagay waxa uu ku sheegay inuu markaasi dhibaato weyn kala kulmay dadyowga uuna ka shalaynayo sawirkaasi uu qaaday dibkiisa iyo dheeftiisana oo u badnaa dhibaatadii ka soo gaartay